بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين safarkeyga wuxuu la xiriiraa oo aan waddanka Mareykanka kaga imid inaan ka qayb galo shirweynaha culimada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda oo madaxweynaha uu namarti qaaday wuxuuna ku saabsan yahay in laga hadlo mashruuca weyn oo madaxweynaha waddanka Soomaaliya uu hogaaminayo oo ah la dagaalanka fikirka khawaarijta ee takfiiriga ah in culimada ay ka soo saaraan bayaan cad oo shaki aan ku jirin khadka ee culimadaasi haysta waxaan u jeedaa raali ahaada khadka ay kooxdaasi ay ku taagan tahay inuu yahay khad khaldan oo diin aan shaqo ku lahayn isla markaasna lagula dagaalamo saddex weji anay aragtidayda weji ah fikirkan in lala dagaalamo si toos ah oo takfiiriga ah oo qofkan iyaga ahayn gaalaysiinayo laba in lagula dagaalamo qaab military ah oo shakhsiyan aan aaminsanahay oo Soomaali kaliya ah oo awood aan u yeelanno in annaga aan soo afjari karno markii dhinacaas ay timaado qaabka saddexaadna waa qaab dhaqaale intaasna waxaan u maleynayaa culimada haddaysan hormuud u noqon in aysan shaqaynayn waayahay maalmaha saddexda shirku u socdo maxaa culimadu ay ka hadli doonaan macluumaadka aan hayo waxaan ka hadlaynaa kow in la daraaseeyo asbaabaha keenay fikirkan khaldan ee khaarijiga ah ee xag jirka ah ee takfiiriga ah in laga doodo asbaabahaasi xal ma loo heli karaa xalka ugu sahlan oo Soomaali weyn ay ku badbaadi karto iyo dawladdeeda iyo shacab ahaan iyo dhul ahaan muxuu noqon karaa culimada inay ka doodo kadibna ay soo saaraan bayaan dawladda ay sal u noqon karo howlgalka dawladda ay samaynayso oo la waafajiyo shariicada islaamka maadaama aan nahay culimo diinta islaamka ku takhasustay waajib waxaana saaran dawladda inaan hagno wixii khaldanna inaan saxno qaabka howlgalka wixii sax ahna in la taageero waayahay sheekh xasan jaamici markaad eegto dad badanna waxay aaminsan yihiin culimada markasta shabaab qaraxiixa marka geystaan dad badan ay ku laayaan culimadu inay ka gaabiyaan ka hadalka daadinta dhiigga qawaarijta doodaas ma qabtaa culimada waxaan aaminsanahay culimo fara badan oo ka mid ah culimada gudaha joogta iyo dibadda joogta inay ka hadleen laakiin heerkii la rabay ma gaarsiisna waa aaminsanahay culimo gaabis ah ayaa jira culimadaasi waxaan rajaynaynaa inay ku soo biiraan ragbigan culimada gudaha iyo dibadda joogta oo arrintan sida joogtada uga hadasho si culimada dhammaystiran loo helo oo markaasi shacabkan ay u arkaan culimada inay hal meel ay ka soo wada jeedaan ugu dambayn marka maxaa laydinka filan karaa gabagabada shirka in culimmadu ay isku raacaan horta ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu qur-aanku ku dhahayo atiicu llaha wa atiicu rasuul wa ulul amri minkum ulul amri waxaa loola jeedaa madaxdii sultada dawladeed iyo culimmadii haddii labadaasi isfahmaan wax ugu weyn oo shirkan ka soo bixi kara waxaa waaye haddii labadaasi isfahmaan ee wada shaqeeyaan waxaa suurtagal ah dagaalkan inuu afjarmayo laakiin labadaasi haddaysan u shaqayn sidii loogu talagalay waxaa adkaanayso nimanka in laga adkaado